sanad walba caalamka waxaa la soo bandhigaa wadamada ugu amniga xun adduunyada iyo wadamada ugu amniga fiican adduunyada. Soomaaliya waxay ka mid ahayd sanadihii ugu dambeeyay ama 30 sano ugu dambeeyay shanta wadan ee ugu amniga xun adduunyada. Mararka qaarkood ama sanada qaarkood Soomaaliya waxay ahayd wadanka ugu amniga xun adduunyada. Laakiin reportkii maanta ay soo saareen Global Peace Index uu ka duwanay waxyaabihii hore oo Soomaaliya xataa waxay ka baxday 10 wadan ee ugu amniga xun adduunyada. waxa ka hooseeya u maleynaa 13 wadan ama 12 wadan oo 20 wadan ugu amniga xun adduunyada soo galay. waa guul, waa arrin fiican waaye. lama filaynin in si degdeg ah Soomaaliya ay kaga baxayso godkaas ee mar hore ku dhacday. wadamada Ruushka, Israel, Ukraine waxay ku soo biireen 10 wadan ugu amniga xun maadaama dilal fara badan, duqeymo fara badan, qaraxyo fara badan ay ka dhaceen sanadihii ugu dambeeyay. wadamada ugu fiican Iceland, Ireland, Switzerland, Austria wadamada ugu amniga badan waa adduunyada oo dilkooda aad u yar yahay. xilliyada hore waxaa top ahaan jireen Japan oo taa qof lagu dilin, laakiin waxa u maleysaa inay ka sii baxayaan. wadanka Ingiriiska camal waa 30 iyo xoogaa ku jira hoos u sii socda. Mareykanka numberka ay taagnaayeen maanta ma taagno. marka waa arrin lagu farxo. marka qaarkood Soomaalida markii wax wanaagsan la sheego waxay u maleeyaan in la amaanayo dawlad, in la amaanayo ma aha. waxaan hay'adahan shaqo kuma laha dawlad, waa hay'ado madax bannaan. waxay fiiriyaan 2025 inta qaraxo dhacday, inta weeraro dhacday, inta qof la dilay. waxa laga yaabaa xilliyada hore inaan adduunka fahamsanin oo annaga kaamirada aan la daba taagnaa jirno boonboonin jirnay. laakiin dadkii waxbay baranayaan, way soo ilbaxayaan. social media qayb fiican u ka ciyaara oo ebil waxaa jiray wariyaal intee tagaan Soomaaliya wadanka ugu amniga xun meel yar oo hub lagu gadayo soo daayo. laakiin hadda caalamku waxay arkayaan dhalinyaradan youtuberada TikTok oo soo duubay magaalo qurux badan, degan, buuq aan ka jirin. marka waxay sii caawinay baaritaanadii la sameeyay inay fududeyso. laakiin marka hore xataa wariyaal Soomaaliyeed tagi jiray oo wadada qofka maraysa waa balaaya, waa la kubsana, dhibkaas ka jira, soo gudbin jiray iyagoo dhaqaale yar ka helay ama u shaqeynaya idaacado oo adduunka caanka ah. marka waa arrin fiican waaye. dawladnimada la sheegayo waa qor isku dhiib waaye. badanaa wax hadda soo bilowday maaha oo dawladdan kaliya maaha, waa wax sanadihii dambe soo socday. guusha waxaa iska leh dawladdan hadda jirto oo magaalada Muqdisho 100% amni ka dhigtay. qaraxyo fara badan oo dhici jiray, weerar fara badan oo dhici jiray, numberkii aad u yaraaday. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdan inay ka sii wanaagsanaato.